imaaradan aynu sheegayna waa nafto khayrka lagu tarbiyeeyo. اللغة العصرية لا استعمالها وتربية الأنفس وقفك مسلم نمدي سيسكضية إنه نفتي سكر رباية إنه كوكرية رباية ضمها عرورته وحلا رباية قفول مسلم وحبه إنه نفتي ستربية نفط وحرق لبستان الله ما تاكله وحيدون يسي شهوات ويسكتر بديه الشيطان وكل ما يهي إذا وحيدون يساعد هجانك وقبطه عمل كستور حنو أطربتين كف غضاه wuxuu kaaga baahan yahay waqti wuxuu kaaga baahan yahay casiimo iyo go'aan adag wuxuu kaaga baahan yahay asxaab wanaagsan wuxuu kaaga baahan yahay diin fiican aad qaadato wanaag kasta aad rabto inaad ku dhaqantaa naftu waxay u baahan tahay in la layliyo awrka goorma la rartaa qaali yaro buubo kaynta iska baraya dee lama rarto awrka inta la soo qabto ayaa la layliyaa oo muddaan haama la saarin ee hoggaan qura la baraa oo kaynta la wada la ereriyaa oo kolba geed lagu xidhaa oo sanqar badan la maqashiiya oo ood iyo wax lagu raraa aakhirka haama lagu raraa beri dambe hayin noqda iyo gurgurshaa yani awrku maalinta koowaadba ma soo baxo hayin ama gurgurshaa ama wax la iska rarta ma noqdo ee mudda la layliyaa nafta bini'aadamka waxay u baahan tahay in la layliyo maalinta hore salaatu leelka way ka diidaysaa dadka ha xaman inta ugu taakelimaysa adigoo dhinaca xanta kaga jiro baad sarkaysaa heblaaya markay sheekada ku bilowdo aadna ka jawaabay baad arkaysaa waxaas oo dhan naftu way iska wadaysaa laakiin waxay u baahan tahay in hogaaninta lagu xidho la wado oo la layliyo oo la wado ilaa marka dambe dunuubta ay u soo urto oo xumuhu qofku uu la xumaado oo iimaanku uu dhadhan la yeesho sidaa ogeed buu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamay iimaanka macaankiisa cidda hesha waxaa ka mid ah buu yidhi halaathun man facalahunna faqad daaqa طacma aliimaan buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saddex ninka dhadhamiya saddex ninka sameeya iimaanka dhadhankiisii macaana wuu dhadhamiya iimaanku dhadhan macaan buu leeyahay ilaahay oo lagu xidhnaadaa dhadhan macaan bay leedahay walidalik ba axad culamaa'i salaf waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi 20 sannadoodna naftaan qasbayay inay salaatuleylka u kacdo 20kii dambena waan macaansanayay buu leeyahay dhadhankeedii baan gaadhay intii hore waan qasbayay buu leeyahay oo hoggaan baan ku hayiyay inaan layliyo laakiin markii dambe waxaan gaadhay buu leeyahay in aan macaansado ilaahay la xidhiidhkiisa subxaanahu wa tacaala sidaa ogeed wuxuu nabigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان صدح نكي سمايا إيمانك معانك سود دبي من عبد الله عز وجل وحده منك إلهي سبحانه وتعالى كلي عابده وأعطى زكاة ماله طيب بها نفسه في كل عام وبحية زكاة حوله سيسقى نفتي سؤال رال لك الطهي والربين زكيستو كوي ليري زكيسيه في عناب بحية وزكى نفسه بنبوه ونفتي سنة طاهر يالا صدح ضعنك اسكتر صدا الإيمان بالله وإلهي كالقي إند عابده إند مالك بحسودتك إلهي كويري سيسيسي هي نفط إند طاهر ياشا صدح ضعنك اسكتر عابو نبو لي كاسي وحود الدمية محي وحد الدمي يقول النبي يقول طعم الإيمان إيمانك معانكيس نبا وحكوري وما تزكية النفس وإيمانك معانكيس ومحيبا لقول إله رسول كسيو النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه أن تعلم أن الله عز وجل أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان وإنه قفكه وقال محي إنه إلهي معي سيميل كستوجوغا قضية المراقبة بكشر حين تزكية الأنفس مركا كان وحكومة عنيين يتهي محي inuu qofku ilaahay ilaaliyo wax kasta uu qabanayo inuu yiraahdo ilaahay talow muxuu ka oranaya xalaal ba xaraam ba midan ba ku sugan ma ajar ba ku sugan ma khayr baad ka helaysaa mise shar baad ka helaysaa qofku intaan wax qabanin inuu wax kan arko inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu taalacanayo wax laga yaabo qofka bini'aadamku dunuubta markuu sameeyo sida hal dhuumo meel aan dadku ka arkaynin xumaha ku sameeyo لكن قفك إلهي السنة بقلبك يسوع إيمانك وقلي وحر بيسين عن مال غضون تاجرين أدونك بينه مكشوف يقاوي هاي وهي إلهي بقوارك يا مرد إلهي قوارك يا أنا كبتان ما يالنا يادك وحكا قريبا مرد إلهي وقوارك يا سبحانه وتعالى مالات كله مطية مال غقر صوماتونا ما جرته سيدا وقادوا حلان إخوتي في العقيدة
mas'alada in nafta la tarbiyeeyaa waa mas'alo qof yar iyo qof weyn dadku u wada baahan yahay. waxay leenahay waa mas'alo u baahan naftaada intaad tarbiyeysay waxay ku xidhan tahay intaad alla ka cabsigaagu batay. sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa. waxba aniga ha isu kay ammaanina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. anaa og ka alla ka cabsada baa la leeyahy subxaana wa tacaala. cidda taskiyatu nafsi xaqiiqiya samaysay anaa og baa la leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ahlu taqwuna waa kuwii maalkooda bixinaya iyagoo rabay inay isdaahir yeelaan, isagoo raba qofku bukhliga iyo shaxnimada, dhabcaalnimada iyo masuugnimada inuu naftiisa ka daahir yeelo. yani nafta bini aadamka ahi abuur ahaan bay dhabcaal u tahay. abuur ahaan bay nafta bini aadamka u jeceshay inay iyadu wax yeelato, cidna inaanay wax ka siinin. alanaaniya, keligaa inaad wax yeelato wuxuu dhamin. laakiin waxaad u baahan tahay waa wax lagaa raba inaad nafta ka tarbiyayso, waa iyadaa lagugu itixaamo. walidaalika inaad barto, ilaahay baa qur-aanka muxuu ku leeyahy wauxdirat ilanfusu shux. nafta bakhaylnimada waa lagu soo ururiyey baa la yidhi gebigeedba. laakiin maxaa kale ilaahay yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun. ninka awoodee ilaahay qofka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftiisu, waayo naftaadu yay ku bakhaylaysaa, aday kugu bakhaylaysaa. waxnaad ururinaysa waad ka dhiban un adigu ma lihi. inan iyo inankii u hadhatoona danka ma lihi. adigu maxaad leedahay? waxaad leedahay waxa aakhira kaaga sii horeeya. waxaad daarta aakhira ku dhisataad leedahay. daaraha dunida waxaad ku dhistay waxba kuma lihi. waxaad ku leedahay maxay? daartaada aakhira waxaad ku dhisatay. cidda aad ku bakhaylaysaa waa isla adigii. waman yabkhal fainamaa yabkhal calaa nafsi. ninka bakhaylaya wuxuu ku bakhaylaya waa maxay? waa naftaadii. idan waxaa loo baahan yahay nafta in la tarbiyeeyo. ilaahay markaasuu leeyahy wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatazakkaa. naartaasi waxaa alla ka fogeynaya kuwa ilaahay ka cabsada oo ah kuwa maalkooda u bixinaya si ay isu daahir yeelaan. waxaan leenahay alla ka cabsiga iyo tarbiyatu nafsigu waa isku xidhay. qofkii alla ka cabsaday alla ka cabsigiisu batay ayaa qofkii naftiisa rabeeyey ee si wanaagsan u galay. waana kaasi uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay uu ka baryay. walidalik baa culimmadu waxay yidhaahdaan taqwada iyo taskiyada la tilmaamayaaba waxa weeyaan qofkoo wixii xaaraanana ka dheeraada, wixii ma'muuraad ee la farayna la yimaado oo sameeya.